dawlad baan noqonayaa iyo qabiil baan noqonayaa isma qabtaan islaam baan noqonayaa iyo qabyaalad iyo qabiilaysi baan ku dhaqmayaa isma qabtaan la shak labaas wax isku imanaya ma nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidoo u daweeyay waynu tilmaami doonaa dawada xagga dambe markaynu tagno sidoo u daweeyay qabyaaladaas oo markiiba hawada ugu diray laakiin aasaarteeda foosha xun ee maanta ay haysataa waadiga arkay waxa aynu wax ku qaybsano oo dhan waa qabiil aasaarta foosha xun ee ka dhalatay imaka markii iclaam loo helay qabyaaladiina foolxumada ay leedahay waadiga arkay iclaam baa loo helay TV maqal iyo muuqaal oo mid walba intuu soo fadhiisto wuxuu doono ku hadlay hadaan reer hebel nahay iyo odhanay salaadiin baa loo helay boqolaal gaadhaysa ayaa loo helay mid walba duub weyn intuu soo qaatay dabeedna isagu aan wax alla wuxuu ka xishoonayaa baan jirin intuu TV-ga soo fadhiisto odhanay hadaan reer hebel nahay wallaahi inaan wax ka soconaya aan jirin iyo odhanay soo fadhiisto ma suldaan waxa artay wasiiruhu hanjabaya wallaahi wasiirkaasi wuu iska hadlay ayuu leeyahay waa wasiir buu hanjabaya dhowr suldaan baa isa soo aruursanayo madaxweynihii baaba loo hanjabaya iyo xukuumadii oo dhan baaba loo hanjabaya maxaa jiraba waxa loo wax jiraa ma jiraan website-yaa ka sii daran oo iyagu u abtirinayaba dadkii saddex agaasimo maanta madaxweynuhu uu soo magacaabo waaba loo abtirinaya kaasoo waa in hebelo kaasina waa in hebelo labaasaa isku abtiyo labaasaa isku habar wadaaga waa la odhanaya halkaasaynu mareen yaa abtirsintooda u akhriya talo yaa u sheega macnaha waxa weeyaan markii imika iclaam faafiyo bahasha qabyaalada ahayd loo helay waa aataarta xun ee foosha xun ee maanta ina haysata weeyaan imika ilaahay dartii iyo nabad jacayl iyo ehelnimo iyo unbaynu u wada fadhinaaye way kala wada fadhidaa waxaasina waxa weeye waa qabyaalada weeyaan waxay odhan jireen maamahdoodii sheekuna uu tilmaamayay unsura kaaka daabiman oo madluuma walaalkaa u gargaar iyo gardarraba maanta tii baa taagan innagana waa caynkaa weeyaan leegba maayo walaalkaa ma gardaranya mise ma gardarna markaa lagu daweynayaa ayaa isweydiin leh ilan daweynu u baahannahay bahashii qabyaalada ahayd waynu aragnaa nafta inoo keentay mid waliba uu taahayaa maxaa lagu daweynayaa waxaa lagu daweynayaa wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku daweeyey markii uu ka soo dhex baxay quraysh waxay odhan jireen haddaanad wax dulmiyin waa lagu dulmiyi darkaaga haddaanad seeftaada ku ilaashaninna waa lagaa dumin waatay soomaaliduna ay mahmahaas iyaguna soomaaliduna ay mahmaahi jireen markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ku daweeyey kitaabka qur-aankaa buu ku daweeyey ilaahay subxaana wa tacaala isagoo inala hadlaaya muxuu yidhi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إله وذا قبصدا وهكلا تجينا واتلقبت بعد يتاوي إلهي محور سبحانه وتعالى حرق إله وذا قبصدا وهكلا تجينا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها حرق إلهي قبصدا وهكلا تجينا waxaa xasuusataan nimcada ilaahay uu idin siiyey ee ah nimcatul iimaan nimcatul islaam ilaahay uu idin siiyey xasuusta ee ilaahay uu idin walaaleeyey ee islaamka uu idinku walaaleeyey waqti ayaa islaamku soo degay ahaydeen kuwo dacar naareed ka laalaada ilaahayna uu idinka badbaadiyo iimaanku idinku badbaadiyo taa xusaba ilaahay yidhi dabeedna qurayshoo iscuni jirtay maxay ku dambaysay waxa weeyaan 23 sannadood buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu dacwadda faafinaya waa intii imaka aynu waddanka ku soo noqonnay ee somalilan ay jirtay waaba 23ka weeyaan imaka dhallinyaradan yaryar intan haddee wada dhalatay waa shalay weeyaan soo maaha waa 23 sannadood buu ku tirtiray qabyaaladii oo uu ku tirtiray asnaamtii oo uu ku tirtiray shirkigii oo uu ku tirtiray waxa la wixii laabta iyo qalbiga uga buuxay oo dhan uu ku tirtiray oo muxuu walaaleeyay
wuxuu walaalay shantii qaaradood ay walaalay intuu carab dhaafay suhayb oo ruumiya bilaal oo xabashiya salmaan oo farisiya iyo abubakar oo carab oo qurayshiya ayaa wuxuu ku walaalay raayatul islaam ayuu ku walaalay calanka islaamka ayuu ku walaalay waa qaaradihii oo dhan weeyaan afrika iyo yurub iyo aasiya iyo carab in alle intii oo dhan buu calanka keliya iyo islaamka keliya ayuu ku walaalayay oo uu ka baabiyey casabiyaddii oo uu ka baabiyey qabyaaladii oo uu ka baabiyey wadaniyadii oo uu ka baabiyey shirkigii iyo asnaamtii ay sidan jireen wixii oo dhan digada ka dhigay waa 3 sanadood gudahood ayuu xodhan kaga takhalusay dabadna intaasoo dhan baa walaalowday muxuu yidhi markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dacuuha markuu qabyaaladda ka hadlayay iskaga taga fa innahaa muntinna waa qurun way uraysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam erey aanu nabigu xataa isticmaali jirin buu u isticmaalay qabyaaladda foolxumada ay leedahay watin soo tilmaanay xaarwalwaal afka saxarada ku qaadayuu ku tilmaamay markii hore quruna iminkana muntinna wax uraya ayuu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam iskaga taga buu yidhi laysa minna man dacaa ilaa casabiya naga mid maaha ninka ku dhawaaqayaa ree hebelaay walaysa minna man qaatala calaa casabiya naga mid maaha ninka ku dagaalama casabiya walaysa minna man maata calaa casabiya naga mid maaha ninka ku dhinta casabiyad dabeedna halkii bay kaga wada takhaluseen maantana walaalayaal waxaynu kaga baxaynaa inaynu qaadanno ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ilaahay diintiisa aynu ku walaalowno rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu qaadanno amarkiisa bahashaa uraysa ee ayna dishay imanka waxaa la yidhahdaa odayaashii hore iyo sheekhu waa kii tilmaamaya odayaashii hore ayaa iyaga laga fujin kari maayo anigu waxaaban ku leeyahay kuwii yaryaraa baa ku dhashayba kuwii yaryaraa ayaa ku dhashay intii waaweyneed waxbaba qalbiga uguma jiraan maalin walba habeen walba waxaad carraabaysaa ama xaafaddii aad tegaysaa iyagoo afartii xaafadood ee iska soo horjeeday isku laynaya maaragtay markay kubadda ka soo dareeraan ama markay xoogaa yar u qabtaan ayaa laba xaafadood la isku laynaya harwaydi sida miyaad may wallaahi inaan midnoo kala dareeray war adeer iminkaad dhalatay mawaad waxba maad aragba goormaadin ma garata dhagaxa ayuunbay saasuunu tuurayaan dhagaxana qoriguunbaa ku xigaya waxaynu islahayn bahashu waxay yuururtaa waddanka gudihiisa bal dibadda warayso yurub bay kala fadhiyaan ka warran ingiriiskaa lagu leeyahay halkaa ardaa hebel iyo halkaa ardaa hebel iyo halkaa ardaa hebel oo aan dabka kala qaadan baa lagu leeyahay masaajidii baa qabiil loo kala fadhiyaa iska daa wax kaloo bahashiba xaggaasay qabatayba haye carabta waxay ku leeyihiin markuu ninku soo dego ee uu tago khaliijka ayaa markuu tagaa la odhanaya kani waa badow ma kii halkaasaa tagtay ma meesha halkaasaa tagtay haya war halkaa wari hebel lama tagee kaale ninkiiba waa la sumaynayaa ninkii halkan ka taga hargeysa amba burca ka tagay waddanka ka tagay islahaa amba iska xajayeyba aba markaaba irbad lagu mudayaaba loodhanaya annagu miyaanu xaggaa tagnaaba intaynu inagu intan yar baynu hadda waaba 4 nin inta halkay waxay ahayd gaal iyo islaam halkay iyagu iska weheshan lahaayeen ayay kala wada fadhiyaan marka kii yaraabay gashay oo kii dibadda joogay bay gashay oo wadi arkay bal website-yada marka saa u eegta qaar bad la yaabsa waxay ku soo qorayaan bahla inagu aynu ka tagnay gudaha dadkeena jooga bari hore aynu ka tagnay iyaga halkiiba u taagantay bartiba qaar badan u taagantay marka baashan yar iyo weynba way dhax qaaday laakiin maxaa lagaga dawoobaya islaamkaas ma lagaga dawoobaya ilaahay kitaabkiisa oo inuu soo noqono oo inuu ku walaalowno oo inuu bahashan iska dayno oo iclaamka faafinaya qabyaaladana ay joojiyaan imkiinta masaajidkeena fadhida inta fadhida ilaahay dartii baynu halkaa u soo galnay halkaasaynu masaajidkaasaynu khayrkaa ku dhegaysanaynaa salaaddii ilaahay baynu sugaynaa ictikaafkaasaynu ku jirnaa alle keliyaynu caabudaynaa dadka muslimiinta baynu haddii imika la eego qof haddii la yidhahdo amba la dhashay ama qof ma jiraba dee waa maxay dadka islaamka halkaa iskugu yidba haddaynu imanka nidhaahno bal intaynu kala sooca ka warran
هلي بميسيد بدي قف ميد هلي سابا إلا أنتن إلهي بس كسو صاعي مركا وحويان وريان ضدك إن وهاشنا بترسين تليرا وحلا وحي مالك وجينيسا ما جرتوا إلهي يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكو كالميستا الله عبسيغا يبرغ لكن اسكو كالميسانينا علايتنك إيه طلايدا قبيالدو ninka aad isku reerka tihiin laba jeer un buu ku imanay baladu eeg laba jeer un buu ku imanay maruu makka doonayo iyo qaaraan iyo maruu tolaayay leeyahay muusanaabay labadaas un buu ku imanay wallahi hadaad baqtiyeeso koob shaaha inaanu ku shubin haduu yahay ka ugu maal qabaysan ma jirto koob shaaha ku shub maayo de waxba isku ma tiidin marka laakiin maalinta amba isaga ay haduu kursi soo waayo uu kugu soo muusanaabaya haduu wax soo dilo uu kugu soo muusanaabaya hadduu balaayo soo sameeyo wuxuu oranayaa waa laynala soo kacay soo cararay laakiin inuu khayr kuugu yeedho habeen xalay tagi haddaba dadka muuminiinta waa kuwa wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala innamal mu'minuuna ikhwa dadka muuminiintu waa dadka walaalaha weey dadkeena halka masaajidka iskugu yimid ee ilaahay dartii halka u wada fadhiya kuwaas walaalo dhaba ayaan laynoo kala abtirin ila weynaga masaajidkii wada joognay ee khayrkii wada dhageysanay ilaahay dartii u wada nimid ee isku safka ah war markaynu kadinka gaadhno yeenan ardaayo noqonin markaynu kadinka gaadhno yeenan ardaayo noqonin ee sida aynu masaajidka ilaahay u soo wada galnay aynu ku ahaano dad walaalo ah nabiguna kaleey salaatu salaam المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قفك مؤمن كان المؤمن wuxuu adkeenaya sida dhisku isku adkeeyo adduunyo aakhiraba horumar baynu yeelanaynaa haddaynu ilaahay kitaabkiisa ku walaalowno oo islaamnimadeena iyo walaalnimadeena haddaynu ilaalino haddii kale aakhirana meel tegmayno adduunyana meel teg war gaalkii baa iskaga tegay bahashan qabyaalada waa gaalkii mulxidka ah baa iskaga tegay oo kii haddii la yiraahdo in maartay yahuudiya nasaara iskaga tegay bahashan waxa la ogaaday markuu islaamku ka takhalusay ayayna ka takhaluseen bahashan ay rajalahayn in wax lagu qiimeeyo ama wax lagu qadariyo ama wax lagu colaadiyo ama inay tahay adduunyo iyo aakhiraba mid kula haris war qabyaaladana waxba inoo tarimayso war waxa la waxa kala qoqobadana waxba inoo tarimayso kana waa reehbel inoo tarimayso haddaynu doonayno ummad inay noqono oo dawlad aynu noqono oo islaam aynu noqono oo ummadaha caalamka dad jira oo la mid ah aynu noqono ilaahay kitaabkiisa aynu u soo noqono qabyaaladaas iyo falxumada ay leenahay aynu ka dheeraano ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sida xaqayna waafajiyo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan intaasaan kusoo gabagabaynaa tan iyo intaan barnaamijka la isugu doono insha allah waa kamaradii rafiiq rashiid iyo editingkii maxamed caqli hadi iyo anigoo maxamed shabeela dhammaantii waxaan ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دوغي حقي ودينتنو أدكي